الله سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل إيولاشين الله ترتيس إذن جعل وحان إن إذن لجعل استمعت إلى إذن سوقد بي حديث يرو قاون لكن حنبارسن فإذا أد وين حديث كان وحاوك هدليا وحيابها جنة الله قالوا إن أد أغاتو مهم إيتهاي وحساس وين معهن لكن وحوى فأد وفائدة بدل وجنة أدو إلهي كو إرزاق كوا فجنايو حديث كان وحوليه هي إن هرت مركور وحا لغا وريي أبو عبد الله جابر بن عبد الله صحابي أها الأنساري أها الله كراله نقضي إن يعني نين ويديي رسولك إلهي نين إن ويديي نبتقلين حديث شيء الله ياله وكير هدي أن دكذو صلاة oo aan soomo ramadaanka oon banaysta xalaasha ayuu ku yiri oo aan iska reebo xaaraanta intaana macnaha markaasna aanan waxba aanan ka siyaadinin magalaya jannada ayuu ku yiri wuxuu ku jawaabay nabiga Allah nabadgelyo xadiishiisa Allah yeelaha xadiiskan waxa warinaya muslim macnaha aan inaan ka reebnaado xaaraanta waa in aan ka dheeraada xaaraan oo idil in aan banaysto xalaashana macnaheedu waa in aan ku dhaqmo wax xalaasha ah anigoo rumaysan xalaalnimadooda marka xadiiskani wuxuu inooga waramay waxa lagu mutaysan karo ama jannada lagu gali karo taasoo ah in qofku guto waajibaadka lagu faray ee yeelay waajibaadka lagu ilaahay uu ku faray yeelay in uu guto kana dheeraado waxyaalaha laga xaaraantinimeeyay oo aadka u yar dunidana kuya sida doofaarka qamrada iyo xagga dadka kale iyo in uu cuno wixii ilaahay xalaaleeyay oo ah wixii ka soo haray xaaraanta marka xadiiskan waxaan ka faa'iidi karnaa oogida salaada ay tahay waajib iyo soomida waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa in laga dheeraado xaaraanta waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa ku dhaqanka xalaasha waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa in camalka wanaagsan ama camalka fiican lagu helo janno camalka xunna uu ku geyn karo naarta intaas ayaan ku soo koobaynaa wa aqulu qawli hada وأستغفر الله لي ولكم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاشين والله درتس إذن جعل وإلى لقاء آخر أستودع الله الذي لا تضيع ودائع بالله سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل إيولاشين والله درتس إذن جعل waxaan in idin la jeclay istamaat inaan idin soo gudbiyo xadiis yar oo gaaban laakiin xambaarsan faa'iido aad u weyn xadiiskan waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha jannada lagu galo in aad ogaato ay muhiim ay tahay wax saas u weyn maahan laakiin wax waa aad u faa'iido badan oo jannadana aduu ilaahay kugu irzaaqo kuwa fajinayo حديث كان وحوليه هي إن هرت مركور وحا لغا وريي أبو عبد الله جابر بن عبد الله صحابي أها الأنساري أها الله كراله نقضي إن نين ويديي رسولك إلهي نين إن ويديي